kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee dalka Zambia Hakainde Hichilema waxaa soo baxayay warbixinno xiiso gaar ah leh oo la yaab badan xambaarsan oo noloshiisa ku saabsan warbixinadaasoo lagu qoray wargeysyada ugu caansan dalkaasi Zambia iyo kuwa caalamkaba cinwaanada warbixinadaasi ayaa laga dhigay loo jirkii madaxweynaha ka noqday dalka Zambia haddaba daawade waxaad warbixintaydan ku daawan doontaa nolosha qaaska ah ee Hakainde Hichilema iyo sida ay ugu suurta gashay isagoo loo jir ah inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi Zambia fadlan haddaad tahay shakhsi ku cusub barteena YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad u noqoto shakhsiga ugu horeeya ee hela warbixinadaan halkan ku soo gudbinno Hichilema oo 59 jir ah ayaa isku sheegay inuu yahay loo jir raaci jiray xoolaha qoyskooda markuu yaraa inta aanu noqon ninka ugu hodansan dalkaasi Zambia madaxweynaha la doortay oo ah hogaamiyaha xisbiga United Party of National Development oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan UPND waxay dadku badanaa u yaqaanaan HH wuxuu ka dhashay qoys saboola kadib waxa uu suurta gashay inuu deeq waxbarasho ah ka helo jaamacadda Zambia kadibna wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Birmingham ee Ingiriiska oo uu ka qaatay shahaadada labaad ee MBA wuxuu ka shaqaystay ganacsiga maaliyadda dhismaha beeraha adeega caafimaadka iyo dalxiiska wuxuu labada heer ee noloshiisii uu soo marayba ku soo jiitay dadka codbixiyaasha ah wuxuu codbixiyaasha u sheegay inay u baahan yihiin ganacsado tanaaday oo fahmaya sida dhaqaaluhu u shaqeeyo inuu hoggaanka u qabto dalkan macdanta kuubarka hodanka ku ah wuxuu sidoo kale adeegsaday sooyaalkiisii beeraleynimo si uu u soo jiito codadka beeraleyda dalka isagoo sheegay inuu Zambia ka dhigi doono dal gobolka quudiya laakiin waxa Hichilema iyo da'yarta isku xidhay malaha guushiisiina udub dhaxaadka uu ahaa waa siduu ugu guuleystay nolosha in ka badan 7.2 milyan ee codbixiyaasha Zambia ka diiwaan gashanaa waxay da'doodii ka yareed 35 jir oo qiyaastii shantiiba midkood bila shaqo yahay Hakainde Hichilema ayaa tartamay 5 doorasho hore waxayna kala ahaayeen sanadihii 2006 2008 2011 2015 iyo 2020 wuxuuna ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sanadkan 2021 isagoo helay in ka badan 59% codadkii la tiriyay ka hor doorashada Hichilema wuxuu si weyn uga soo horjeeday Edgar Lunga madaxweynihii Zambia ee uu ka adkaaday laga soo bilaabo sanadii 2015 ilaa iyo 2021 11 Abriil ee sanadkii 2017 ayaa Hichilema la xiray kadib markii lagu eedeeyay khiyaano qaran iyadoo xiritaankaasi ay si weyn u cambaareeyeen shacabka dalkaasi waxaana dhacay dibadbaxyo gudaha iyo dibadda ah kuwaasoo lagu dalbanayay in Hichilema xabsiga laga sii daayo ugu dambeyntiina waxaa xabsiga laga sii daayay 16 bishii August ee sanadkaasi si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool dalka Zambia ayaa aaminsan in Hakainde Hichilema uu yahay shakhsiga kaliya ee wax ka bedeli kara musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaale darada ka jirta dalkaasi Zambia